odayaasha dhaqanka degmada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ayaa mar kale ku celiyay inaysan ka qayb gali doonin gogosha dib u heshiisiinta dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay taalo magaalada Dhuusamareeb. Odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inaan lagu metelin ka qaybgalka gogoshaas oo sida ay sheegeen madaxda dawladda Soomaaliya ugu sarreysay ay uga baxeen ballamihii ay la galeen. waxayna sidoo kale sheegeen in dawladda Soomaaliya ay u gacan gelisay maamulka Galmudug ururdiimeed gacanta ku haya magaalada Dhuusamareeb. warsaxaafadeed ka koobnaa 4 qodob oo ay soo saareen odayaasha dhaqanku ay ku faahfaahiyeen sababta aysan uga qayb gali doonin gogosha dib u heshiisiinta ee magaalada Dhuusamareeb. gogosha dib u heshiisiinta ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka furtay magaalada Dhuusamareeb waxay beeshu go'aan satay in aanay ka qayb gelin sababtuna waxay tahay madaxda sare ee dawladda ayaa kaga baxday dhammaan ballamihii hore ee ay u ballan qaaday beesha sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhuna uu xaqiijiyay in ay tahay golihii baarlamaanku inuu yahay magaalada Cadaado ra'iisul wasaaruhuna uu safarkiisii u ballan qaaday go'aan loo midaysan yahay inuu ka soo saari doono 11 qabiil markii uu sarfayga u dhamaysto. waxaa lagu tuntay lana baabi'iyay dastuurkii qaranka iyo kii Galmudug lagu dhisay kuna ballameen 11 qabiil lana qaatay koox awalba ka soo horjeeday dhismihii Galmudug 2015 dhammaan beelaha Galmudugna kala gaarsiisay dhibaato aan laga heshiin. 3 beeshu waxay cadaynaysaa inaanay diidanayn dib u heshiisiin in loo sameeyo beelaha Galmudug waxay soo jeedinaysaa in ay ka dhacdo meel ammaan ah oo ka madax bannaan gacan kooxeed. 4 beesha reer Xaaji Saleebaan waxay doonaysaa in doorashada Galmudug ka dhacdo xaruntii baarlamaanka ee madaxweynuhu uu asteeyay ee magaalada Cadaado. beeshu waxay taageeraysaa kana qayb galaysaa gogosha gurigeeda taala ee shirka baaweynta Habargidir uga socota magaalada Hobyo. sidaas awgeed wixii go'aan oo ka soo baxa ayay qayb ka tahay insha Allah. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo warsaxaafadeedka kadib hadlay waxa ay carabka ku adkeeyeen in lagu metelin gogosha Dhuusamareeb. waxaan cadeynaynaa waxa Dhuusamareeb laga yagleelay inaanaan shaqo ku lahayn, inaanaan mid ka ahayn, inaanaan tagahayn, inaan cid nagu metelaysaa jirin. waxaan kale sheegaynaa dib u heshiisiin diidi mayno sida odayaashuba u sheegeen. waa inay ka dhacdaa meel nabdeed oo la isugu imaan karo oo 11 beelood ba imaan kara. nimanka ugu yeero guddiga uu leeyahay kaalay dib u heshiisiin sameeya maxay sameeyaan oo qaybshaan qofkii wax tabta oo gar u hela inuu maaragtay wax la dhaafiyay ama uu waay awood qaybsigii uu lahaa maxaa u haro la siinaya. diidmada odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan dawladda Soomaaliya ay magacawday guddiga ka shaqeyn lahaa qabsoomida gogosha dib u heshiisiinta magaalada Dhuusamareeb. waxaana horey u diiday odayaasha dhaqanka magaalooyinka Xeraale iyo Caduwaaq. sidoo kale odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo ayaa horey u diiday ka qaybgalka gogoshaasi. Cabdirasaaq Al Cadaala, warbaahinta Goobjoog, magaalada Cadaado.